بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada akhyaaray duruusteeni taxanaha ahayd ee ku saabsanayd barashada culumta buxuusta. qaybtan waxaan ku dhammaystiraynaa batoonkii shaashatulbaxth. inta ugu muhiimsan oo soo qaadanay waxaan u haray keliya dhowr qodob oo is leeyahay waa muhiim qofka danaynaya inuu wax baxsiyo. waxaan ka bilaabaynaa baxth fil canaawiin. masalan kitaab ayaa rabtaa inaad ka baartid canaawiintiisa mowduuc mucayan. العناوين أكو دفنيسا كتاب كان ينبار جرني روضة الطالبين. روضة الطالبين هيك سارسة كلمة عرفت أنت كبارسة الإيلاء مثلا أما الظهار أما الصوم أما حج أي باب أو بهنتهي يا بارسة. مثلا عندنا الحج بحث هنضرن عناوين baxth aa leedahay marka waxaan ku keenaa meel walba mowduuc kasta oo xaj ku jira naska ma ahan mawaadicda oo ku jiro alxaj aw kalimat alxaj waa kana baabu mawaanic itmaam alxaj bacda ashuruuci fiih waa kana waa kitaab alxaj iska xir dib u soo laabo marka waa kaas alcanaawiin. qaybtan kale waa atacliiqaat ومعناه هي كان جاga ka qaadno التacliiqaat waxa waaye tacliiq aan soo marnay sida loo sameeyo iyo markaad samaysato saa u xifdinaysid u save garaynaysid ayaa waxaa u baahatay inaad tacliiqaadkii markay bateen kadib aad baaratid. waxaan kaloo soo daraasaynay in tacliiqa markaad save garaynaysid ay wanaagsan tahay in adiga shafro kuu khaas ah ama magac gaar ah oo fahmaysid inaad ku save garaysatid. مثلا كتبتي استعمال جرني تعليق واحد كم هيدا مثل ليسا كان ناس كترنا المهذب في علم أصول الفقه المقارن جاي صارنا قسم التعليقات جوجنا شفر لي استعمال جرني وحي هيد تعليق فلان مثلا مقع هذا كلام مع خاص كوا مش هذا انت قولي سامرك تعليق فلان بحث على سامرك حقوقين عمل التعليق اكو قرتي فعلا واتنا mid waxay ahayd الاستحسان mid kalena waa kana تعليقaas kale. السبب الثاني تكثير الفصاحة يحتاج إلى البحث عن المزيد من الأمثلة تعليق فلان intan waxaa iska leh qofkii tacliiqa saartay safxada. marka waa soo marnay sida loo saaro tacliiqa iyo howlahaas dib marka u baaranayso si fudud meeshaana tegaysaa qismu tacliiqaat kitaabkii aad dooranaysaa ama kutubtii aad tacliiqa saaratay shafradaada inta ku qoraysaa shafradii aa ugu tala gashay inuu si khaas kugu soo qabto aa inta ku qoraysaa. waxaa ka baxnaa nusuus atacliiqaat alcanaawiin. waxaa wanaagsan si aadan u iloobin markasta in aa geysato calaamadan doorashada qaybta annusuus. intaa kadib waxaa u gudbaynaa batoonkan ay ku qoran tahay sard almu'alifiin oo shaqadiisa ay tahay in uu kugu nidaamiyo qaybahan qaab aqsaam ah ama qaab magacyo ah. hadda waxay noogu nidaamsan tahay aqsaam qismu alcaqiida qismu alfiqh walruduud wahaakada. haddii aan danaynayo inaan magacyada mu'alifiinta u nidaamsado waxaa ku dhufanaysaa sard almu'alifiin. markaa ku dhufato wuxuu ku keena dhammaan asmaadii iska lahayd kutubta ku jirta shaamilada ayagoo alfabaa'i ah iyo ayagoo ah xasba alwafayaat. marka haddii alfabaa'i aa ku dhufatid wuxuu ku keenaa qaabkii alphabetical ayagoo u kala horeeya. xasba alwafayaatna waxay tahay geerida iyo siday u kala horeeyeen. مثلا haddii aa u baahato alfabaa'iyan aad tagno magaca u baahato inaad baaratid mu'alifiinta ka mid ah intaa ku qoraysaa. مثلا albukhaari kutubta alimaam albukhaari raximahullah uu alifay oo dhan oo ku jira shaamilada waa intaan. haddii wafayaadka aadno alwafayaat مثلا mu'alifka ma taqaanid laakiin taariikhdii wafayaadka xasuusataa inta hoos aa ku qoraysaa kan iska tir. مثلا 150 oo kale alimaam abu xaniifa. marka abu xaniifa waa kana 150 hijriyada ayuu dhintay raximahullah. sidoo kale alimaam waxaa u baahanahay ashaafici 204 kana ashaafici raximahullah
waa ku dhufanaysaa asagana kutubta ku jirta shaamilada ee asaga magaciisa ku qoran waa intan. waxaan u baahanahay kitaab mu'alif mucayan ah مثلا imaam waxaa leenahay muslim raximahullah kutubta ku leeyahay shaamilada 261 261 ayaa loo ofsaday alimaam muslim raximahullah afartan kitaab ayaa ugu jirta shaamilada macnaheeda kutubtu alifoo dhan ma aha waa inta isdaarka shaamilada ku jirta sidoo kale waxaa u baahan kartaa markaa masale fiqiya baaraysid mu'alafaadka sida aan sheegnay sheekh mucayana sida النووي رحمه الله تعالى النووي waxaa loo ofsaday 676 النووي ayaa ku dhufanaysaa marka المجموعة كلها ayaa leedahay kutubta oo dhan oo alimaam النووي رحمه الله uu ku leeyahay المكتبة الشاملة inta ayaa lagu soo jamciyey waxaa u baahan tahay marka inaad si khaasa u seefgaraysato si hadhowti aa u laabato mawaadiicda uu qoro iyo asaga waxyaabaha uu gaar leeyahay ama mu'alafaadkiisa waxaa rabta inaad ka dhex baarto marka waxaan ku dhufanaynaa sida caadiga naqaanay xifd majaalaat albaxth wastirjaaciha ku dhufo magaca u baxsanaysaa marka waa mu'alafaat النووي رحمه الله تعالى xifd seefgaree marka waa seefgaraysanay marka mar walba oo waa iska xiraysaa mar walba oo aan u baahdo in aan wax ka baaro mu'alafaadka النووي رحمه الله تعالى jeega saaraysaa meeshaan bas kifaaya waa ku filan tahay kitaabkiisa meel walba uu ku jiro jeega ayaa ku saaran masalada ka baxsanaysaa markaa dhowta u baahato asaga meeshuu raba ha ku qoro xaggaasaa ka baaraysaa marka waa ogaanaysaa inta kitaab uu ku qoray iyo inta meel uu ku jamciyey iyo xataa haddaa u baahan tahay inaad jamcisid aqwaashiisa waa soo aruurin kartaa si fudud ayay kugu dhib yaraanaysaa insha allah مثلا sheekh kale aan doorano ibnu xajar casqalaani waa kan asaga wuxuu noo keenay المجموعة كلها إذا حفظي على مؤلفات ابن حجر مؤلفات ابن حجر مؤلفات ابن حجر سيف قري رحمه الله marka iska xir jeega markaa saarato mu'alafaat ibn xajar ku dooran meeshaan intan mu'alafaat ibn qudaama waxnaabilo mu'alafaat النووي ku dooran markaas kan hore u sameynay maraajic luga kutub almadaahib alarbaca sidaan ayay kugu nidaamsan yihiin marka waxaa u baahatay in aa magacyadan tartiib taqdiim ta'khiira u samaysid meeshaana tegaysaa waxaa laga yaabaa inay kugu dheeraadaan majmuucaadkan aad u bataan oo aqsaam badan aad samaysatid oo uu jiro qismi si joogta wax uga baaraysid marka inaad hore keensataa ku qasban tahay matalan mu'alafaat ibn xajar oo kale waxaan u baahanahay si joogta inaan wax uga baaro waad dooranaysaa falaartan ayaa ku dhufanaysaa kor u qaad kor u qaad kor u qaad kor u qaad waa kaasaa marka ilaa meesha u koraysa aan geysto limaada waxaa igu badan matalan in aan aad wax uga baxsiyo kutubtiisii iyo shuruuxdiisii marka si fudud ayaan rabaa inaan ku helo haddii aan rabo dib inaan usoo celiyo cagsiga falaarta hoose falaarta hoose falaarta hoose wahaakadaa marka haddii aan doonayo magacan aan hadda qoray inaan wax ka bedelo tacdiil ah ku sameeyo maxaan sameynaa magaca waad dooranaysaa marka hore dib ayaa usoo qoraysaa mu'alafaat ibnu xajar مثلا رقم 1 doortay qalinka meesha uu ku qoran yahay tagyiir ism almajaal ayaa ku dhufanaysaa automatically wuxuu qaatay mu'alafaat ibnu xajar رقم 1 kanoo kale waxaa ka bedelaa mu'alafaat النووي waad dooranaysaa marka hore magaca rabta qor kutub النووي qalinka ku dhufanaysaa markaasaa uu ku bedelmay kadib waa iska xiraysaa mararka qaar kitaab ayaa u baahan tahay macluumaadka ku jira inaad ogaatid kitaabka intaadan gudaha furin ayaa rabtaa inaad tafaasiishiisa iyo wuxuu ka hadlaa ogaato matalan saana ku dhufanaysaa kitaabka ku dhufanaysaa waxaa ku dhufanaysaa fi tamyiiz saxaaba oo kale kadib waxaad dooranaysaa bidaaqat alkitaab waxay ku suurtagelinaysaa kitaabka tafaasiishiisa inaad inta ka heshid oo aa ogaatid kitaabkan yaa mu'alifkiisa leh haddii aan doonayo inaan dib u celiyo qaabkay u nidaamsanaayeen oo aan rabin magacyadan sida u nidaamsan yihiin waxaa ku dhufanaysaa sard almu'alifiin markaas sida hore kugu laabanaysaa majmuucaadkii oo diyaarsan ilqaa jamiic alkutub iska dheh
intaas ayaan kusoo khatimaynaa wixii ku saabsanaa zirigan shaashatulbaxth. waxaan gudbi doonaa casharada kale insha allahu tacaala, batoonada kale ee ku saabsan shaamilada. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.